السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا الشنالك فرمرين تابعينك وأنا ومن عبد الله كاريا ما أنتم حكالينا ومحي عقودها كهرتاج قبلها يني وحبتان وعنوك القادنا عقودها لو القوات أو رقم سوتشين سوماليدو إن بدن كسر دخمين كل سو دخمين قبله هذا إيه مت إن حق financial قبلنا laga baqiilo oo macnahaasuna ay tahay in ay tahay gabar nin joogto marka maanta waxa aan ka hadlaynaa waa caqabadaha طبعا qoysas badan oo Soomaaliyeed kama suurtoodo inay gabdhooda wax baraan taas oo ay salka ku hayso inay aaminsan yihiin gabadha haddii ay wax barato inay nin raacayso taasna waxa aaminsan dadka aan aragtida fog lahayn sida ognahay Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa waxa looga jecel badan yahay kan cilmiga barta looga jecel badan yahay nooc doonaba ha noqdo طبعا population Soomaaliya waxa ku badan dhalinyaradaasna waxa ugu sii badan gabdhaha marka ma aan gabdhuhu ku badan dugsiyada wax lagu barto kala duwan ma aan ku badan waxaana keenay inay soo ku badnaan waalidka oo mar walba aaminsan aragtiyo qadiimi ah oo ay Soomaalidu ku dhaqmi jirtay gabdhaha xilliyadii hore oo ah kuwa maanta ka reebay asaagood dumarka Soomaaliyeed fadlan gabdhaha dugsiyada oo dira marka aad gabadh wax bartay shakhs wax ma aan baranay wax bartay bulsho فضل قبلها دوسية